Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada kanaalka Cabdicasiis Boorle. Waxaynu ka hadli doonaa qaybtii labaad. Dilalkii ugu khatarsanaa taariikhda. Martin Luther King waxa uu ahaa maskaxdii ugu weyneed ee aasaastay dhaqdhaqaaqii xuquuqda shacabka Mareykanka. Wuxuu si weyn dagaal afka ugu qaadi jiray kooxihii cunsuriyiinta ah ee caddaanka Mareykanka. Waxaanu ahaa nin madow. Horaantii sanadkii 1968 isagoo oo taagan deyrka gurigiisa dabaqa labaad ayaa si xun toogasho loogu dilay. Ninkan toogtay ayaa la odhan jiray James Earl, waxaanu u baxsaday magaalada London. Markii dambe waa la soo qabtay. James waxa uu ahaa nin cad oo diidan xuquuqda dadka Mareykanka. Ali Bhutto waxa uu noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan sanadkii 1965. Waqtigan waxaa socday dagaalkii Hindiya iyo Pakistan. Waqtigan waxaa golaha ammaanka ka socday dood culus oo u dhaxaysa Pakistan iyo Hindiya. waxa uu ahaa nin dheer oo aftahan ah. hadalladiisa waxaa caan noqday hadalkii uu yidhi: madaxda dowladaha dunida saddexaad kii dalkiisa daacad u noqdana sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa shirqool ku dila, kii xiriir fiican la sameeya Mareykankana shacabkiisa ayaa ka soo horjeesta. marka dhinac walba u daran madaxda. Ali Bhutto markuu Pakistan ku noqday waxa uu aasaasay xisbi siyaasi ah oo loo bixiyay Pakistan People's Party. xisbigan dadka reer Pakistan. madaxweynihii Pakistan ee waqtigaasi Yahya Khan ayaa lagu jabiyay dagaalkii u dhaxeeyay Pakistan iyo Bangladesh. kadibna waxa uu kacdoon shacab ku bilaabay madaxweynihii. taasina waxa ay keentay inuu iscasilo xukunkii dalka ayuu ku wareejiyay Ali Bhutto. dadkii kacdoonka waday ayaa dalbaday in la xidho Yahya Khan, waana la xidhay. xukunkii dalka Pakistan ayuu Ali Bhutto gacan adag ku qabtay. waxa uu booqasho rasmi ah ku tagay dalka Hindiya. wuxuu heshiis xabad joojin ah la saxiixday Indira Gandhi oo ahayd ra'iisul wasaare. Pakistan waxay aqoonsatay dalka Bangladesh. Ali Bhutto wuxuu taliyaha ciidanka u magacaabay General Zai al-Haq. waxaa kaloo uu ka dhigay gudoomiyaha guddi soo diyaarisay dastuurka uu dalkaasi yeelan doono oo ahaa inuu dalku yeesho ra'iisul wasaare awood badan. xisbigii Pakistan People's Party ayaa ku guuleystay doorashadii. kadibna waxa uu baarlamaankii u doortay ra'iisul wasaare. dhowr sano kadib ayuu afgambiyay General Zai al-Haq oo ahaa taliyihii ciidanka dalka ahaana saaxiibkiisii ugu dhowaa. waxaanu ku xukumay daldalaad, waana lagu fuliyay. adduunka ayaa ka qayliyay xukunkan daldalaada ah, balse umuu joojin oo waxa uu ahaa nin naxariis daran. Indira Gandhi waxaa dhalay Jawaharlal Nehru oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee dalka Hindiya yeesho. aabaheed waa uu geeriyooday. Nehru waxa uu dhalay Indira keligeed. Indira Gandhi waxay waxbarashadeedii ka soo qaadatay jaamacadda Oxford, inkastoo aanay aqoonta ku fiicnayn. Indira waxaa guursaday nin la odhan jiray Feroz Gandhi oo aabaheed aanu raalli ka ahay. waxay u dhashay 2 wiil oo kale ah, Rajiv Gandhi iyo Sanjay Gandhi. tartankii ra'iisul wasaarenimada ee Indira Gandhi waxay ka faa'iideysatay sumcaddii aabaheed, waxaana isu sharaxday jagada ra'iisul wasaaraha. waqtigan aabaheed wuu noolaa. sanadkii 1966 ayaa la doortay ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya. waxa ay loolan la gashay xubno ruug caddaa ah oo siyaasadda uga soo horreeyay, balse waa ay ka adkaatay. Indira Gandhi waxa uu khilaaf xooggan soo dhex galay iyada iyo kooxaha Singaha amba kooxaha Sikhiska. markii khilaafkii dhammaan waayay ayuu isku rogay dagaal xooggan oo ka dhex qarxay dowladda iyo Sikhiska. Indira waxay amar ku siisay ciidankeeda in ay burburiyaan macbudka ugu weyn ee ay leeyihiin, laguna magacaabo Golden Temple. madaafiic ayaa lagu garaacay, dhulkana waa la simay. waxaa ku dhintay dad fara badan. Indira Gandhi waxaa ilaaladeeda gaarka ka mid ahaa askari Singa ah ama Sikhis ah. arooryo hore iyadoo ka soo baxaysa qasrigeeda ayuu toogasho ku dilay askarigii. Julius Caesar waxa uu ahaa siyaasi iyo hogaamiye military. waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii Romaaniyiinta ee qarnigii 1. wuxuu hoodo ku lahaa dagaalka iyo kicinta dadweynaha. waxa uu ahaa ninkii bilaabay dagaalkii sokeeye jamhuuriyadda Roomaanka. waxaa loogu yeedhi jiray
keligii taliya aan jixin kooxo lagaga adkaaday dagaalkii sokeeye ee kaysar hogaaminayay ayaa u diyaariyey shirqool dil ah isagoo maraya dariiq tiyaatar agtiisa ah ayaa ay joojiyeen kooxihii dilka waday waanay u yeedheen iyagoo iska dhigaya inay wax weydiinayaan kadib waxa ay la boobeen mindiyo iyo faashash jidhkiisana meel nool waa ay u diideen kaysar waxa uu ahaa nin quwad weyn kadibna waxa uu isku dayay inuu baxsado laakiin waa uu dhacay halkaasna waa uu ku dhintay dadkii taageersanaa Roomaan ayaa ay ka dhaadhici weyday sida fudud ee loo khaarijiyay kaysar oo ahaa nin aad u awood badan Abraham Lincoln waxa uu ahaa madaxweynihii 16aad ee Mareykanka waxa uu xilka hayay 1861 ilaa 1865 madaxweyne Abraham wuxuu taageero weyn siiyay xorriyadda dadka madow ee Mareykanka ah sanadkii 1865 ayuu madaxweyne Abraham tagay tiyaatar isagoo doonayay inuu ka qayb galo riwaayad ay dhigayeen fanaaniinta madadaalada ee dadka ka qosliya waxa arrintan ka warhayay ninka doonayay inuu dilka fuliyo waxaana la odhan jiray John Wilkes oo basaas ahaa madaxweyne Abraham muusii ka xaysan ilaaladiisii gaarka ahayd balse waxa kaliya oo goobta tiyaatarka ilaalinayay 3 askari taasina waxay fursad dahabi ah siisay Wilkes oo dilka fulinayay markii madaxweynihii galay tiyaatarkii ee uu fadhiistay ayuu madaxa ka toogtay waanu baxsaday inkastoo markii dambe la soo qabtay maalmo yar kadibna la dilay waxa shacabkii Mareykanka iyo adduunkaba ka dhaadhici weyday sida fudud ee dilku u dhacay